waxaa maanta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ka qabsoomay meertadii 39aad ee shir madaxeedka urur goboleedka IGAD kaasoo lagaga hadlayay dhanka amniga iyo sidoo kale abaaraha soo noqnoqday ee qaaradda inteeda badan muddooyinkii u dambeeyay ay la daalaa-dhacaysay sidoo kale sixir bararka dhammaan geeska Afrika ku dhuftay ayaa lagaga hadlay kaasoo sixir bararku madaxda intooda fara badan ay isku raaceen inuu sababay dhibaatooyinka iyo dagaalada wadamada Yurub ka socda sida wadanka Ruushka iyo Ukraine. waxaa Soomaaliya uga qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed kaasoo matalayay booska uu ka maqnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo muddooyinkii u dambeeyay ku maqnaa wadanka Turkiga kaasoo uu ka helay martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Erdogan. sidoo kale madaxweynaha Xasan Sheekh oo la wadaagay fariimo kala duwan madaxda ku shiraysa magaalada Nairobi ayaa ugu hambaliyay geedu socodka oo shirku u socda iyo habka ay u soo maamuseen. dhanka kale ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed oo Soomaaliya warbixin ka waday ayaa sheegay Soomaaliya inay hadda xaalad fiican ku sugan tahay geedu socodkeeda iyo habka ay u maamulayso muddooyinkii u dambeeyay dhibaatooyinka dalka ka taagan ay tahay mid aad u wanaagsan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay dhanka amniga inuu aad u wanaagsan yahay Soomaaliyana ay guulo la taaban karaa ay muddooyinkii u dambeysay ku tallaabsatay haddii ay tahay qaabka loo maareeyay doorashooyinka iyo sidoo kale habka loo xaliyay dhibaatooyinkii muddadii u dambeeyay Soomaaliya ragaadiyay. dhanka kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo la wadaagay xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya hadda ku sugan tahay ayaa aad u amaanay ciidamada AMISOM oo ay ka joogaan dalal fara badan oo ka mid ah wadamada Uganda iyo sidoo kale wadanka Kenya, Djibouti iyo Ethiopia oo ku sugnaa goobta taasoo uga mahadceliyay ciidamada ay dhawaan ugu deeqeen inay amniga sugaan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo goobta ku soo xiray hadallo aad u wanaagsan ayaa sheegay Soomaaliya inay tahay mid aad u wanaagsan kana gudbaysa dhammaan arqaladaha hor yaalla. madaxda intooda kale ayaa Soomaaliya ku ammaanay inay xaalad fiican marayso sidoo kale inay ka ciyaartay gool wanaagsan dhibaatooyinkii soo ragaadiyay haddana ay taagan tahay meel ay uga baxdo dhibaatooyinka. madaxda intooda fara badan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa ku ammaanay inay dalka u wadaan meel wanaagsan ayna ku faraxsan yihiin lana shaqayn doonaan darisnimada iyo sidoo kale walaalnimadana ay eegi doonaan.